warar soo baxaya ee sheegay in al-shabaab ay amar ay ku bixiyeen in la joojiyo dhismaha iyo dayactirkii ka socday garoonka Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho. Shabaab ayaa la sheegay in mid ay la xiriireen shaqaalaha shirkadda haysata qandaraaska dhismaha iyo dayactirka garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho iyagoona ku wargeliyay in shaqada ay joojiyaan ilaa amar dambe. Qaar ka mid ah shaqaalaha oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen in iyagoo u hoggaansamaya amarka al-shabaab ay joojiyeen dhismihii iyo dayactirkii ka socday garoonka Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho kadib markii lagu wargeliyay in haddii ay bilaabaan shaqada iyo dayactirka garoonka Stadium Muqdisho ay la kulmi doonaan dil. ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika AMISOM ee Soomaaliya ku sugan ayaa bishii August ee sanadkii hore ee 2018 waxay isaga bixeen garoonka Stadium Muqdisho ee magaalada Muqdisho kadib muddo 7 sano ah ay ku sugnaayeen. wixii xilligaas ka dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la wareegtay garoonka kubadda cagta Stadium Muqdisho waxaana socday dadaal ku aadan in dib loo soo celiyo bilicdii garoonka Stadium Muqdisho lahaa bariisamaadkii.